maalin wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidhaysa meel kastoo joogtaanba waxaad ku soo dhawaataan war wixii maanta naga soo gaadhay adduun weynaha. xisbiga dimuqraadka Mareykanka ayaa si rasmi ah u caleema saaray Barack Obama oo noqon doona musharaxa xisbigooda dimuqraadiga uga qayb galaya doorashada madaxweynenimo ee dalka Mareykanka isagoo la tartami doona John McCain oo ka socda isna xisbiga Jamhuuriga. caleema saarka lagu sameeyay Senator Obama ayaa ah tallaabo taariikhi ah waana markii ugu horeysay ee nin madow ah oo Mareykana musharax kama dambeynta oo uu noqdo mid ka mid ah labada xisbi ee ka taliya dalka Mareykanka. arrintan ayaa ah fursad weyn oo uu Senator Barack Obama ku hanan karo jagada madaxweynenimo ee dalka adduunka ugu quwadda weyn haddii ay taasi dhacdana noqon doonto mid taariikh gala. Obama oo ah senator laga soo doortay gobolka Illinois ayaa noqon doona mid taariikh gala maadaama aan tan oo kale soo marin taariikhda Mareykanka. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Meles Zenawi ayaa shaaca ka qaaday in dalkiisu isku diyaarinayo sidii ay militarigooda ugala soo bixi lahaayeen waddanka Soomaaliya xitaa haddii aanay ciidamadiisu ku guulaysan xallinta iyo deganaanshaha Soomaaliya. waxaanu intaas ku daray in aanay ciidamadiisu sugi karayn inta la dhisayo xukuumad Soomaaliyeed oo awood leh. waraysi uu siiyey wargeyska Financial Times ee ka soo baxa waddanka Britain ayuu ku sheegay in xilligan aanay sii wadi karin dowladda Itoobiya dhaqaalaha ay ku bixiso dhinaca dagaalka iyo ciidamada ka jooga Soomaaliya, dagaalkaas oo aan la ogeyn ilaa iyo imika goor u dhammaanayo. Meles Zenawi ayaa si cad u sheegay in dowladda Itoobiya taageeradeeda ay siinayso dowladda ku meelgaarka Soomaaliya aanay ahayn mid weligeed sii soconaysa, loona baahan yahay dhaqaale badan. dagaalada weli ka sii soconaya Soomaaliya ayuu mas'uuliyadooda dusha u saaray dowladaha reer galbeedka oo ay taageero maaliyadeed iyo siyaasadeedba ka waayeen Itoobiya iyo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya la geeyay. waxa kale oo uu si cad u qirtay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Meles Zenawi ciidamadiisa oo sii jooga gudaha Soomaaliya ay ku tahay culays weyn maadaama ay Itoobiya iyadu aanay awoodi karin kaligeed dhaqaalaha ku baxaya dagaalka iyo ciidamada ka jooga Soomaaliya. militariga Itoobiya ayaa soo galay Soomaaliya 2006 si ay garab u siiyaan dowladda federaalka ku meelgaarka Soomaaliya ee lagu soo dhisay dalka Kenya, xilligaas oo ay dalka qabsadeen xoogagii maxkamadaha Islaamka oo ku sii fidayay in badan oo ka mid ah koonfurta Soomaaliya. waxaana u suurta gashay Itoobiya in ay qabsato Soomaaliya iyadoo sheegtay in ay soo afjarayso khatar ku soo food leh dalkeeda iyo geeska Afrikaba. inkastoo fududeed sidii ay u soo galeen ciidamada Itoobiya Soomaaliya oo ay taageerayaan sirdoonka Mareykanku, waxaa ilaa iyo haatan ku adkaatay in ay sugaan ammaanka magaalada madaxda Muqdisho iyo inta u dhow toona. xasan maxamed Kaynaan oo ahaa madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR ayaa dhowaanta la sii daayay waxaanuu faahfaahin ka bixiyey muddadii uu ku jiray gacanta afduubayaasha oo uu sheegay in aanay wax dhiba u geysan si fiicanna u daryeeleen xaaladiisa caafimaad. Kaynaan oo markii la soo daayay saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu xorriyadiisa dib u helo, waxaanuu caddeeyey in wax dhibaato ah aanu qabin inkasta oo uu daal ka muuqday. wararka ayaa intaas ku daraya in sii deynta mas'uulkan aan lagu xidhin wax madax furasho ah oo lagu xaliyey oo keliya wadahadlo u dhexeeya wakiillo ka socday qaramada midoobay iyo afduubayaasha. intii sarkaalkan afduubka loo haystay ayaa isla Muqdisho lagu dilay madaxii hay'adda UNDP Soomaaliya Cusmaan Cali Axmed, kaasi oo ay kooxo hubaysanay toogteen isagoo ka soo baxay masaajid uu ku soo tukaday. afduubka iyo dilalka loo geysanayay saraakiisha hay'adaha gargaarka ayaa noqday kuwo ku soo badanaya gudaha Soomaaliya, taasoo keentay in ay mas'uuliyiin badan oo ka shaqeeya hay'adaha samafalku ay dalka isaga baxsadaan ammaan darro awgeed. madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga Xasan Maxamed Kaynaan ayaa la afduubay 12kii bishii Juun ee aynu soo dhaafnay, waxaana lagu afduubay mas'uulkan deegaanka ceelasha biyaha oo uu hawlo samafala ka waday. Kaynaan ayaa mahadcelin u jeediyey doorka ay sii deyntiisa ka geysteen madaxda hay'adda UNHCR oo uu u shaqeeyo, inkasta oo ay weli afduubayaashu haystaan dad u shaqeeya qaramada midoobay oo Soomaali iyo ajnabiba isugu jira. madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ku meelgaarka Soomaaliya ayaa ka degay garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
madaxda sare ee dowladda ku meel gaarka Soomaaliya ayaa socdaal dhawaanta ku tagay dalka Itoobiya halkaas oo la sheegay in lagu soo dhameeyay khilaaf weyn oo u dhaxeeya Cabdilaahi Yuusuf iyo ra'iisul wasaarihiisa Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha Baydhabo sheegay in hirdanka isaga iyo ra'iisul wasaarihiisa u dhaxeeya haatan dhan loo dhigay, isagoo intaa raaciyay waxa ay isku haysteen isaga iyo Nuur Cadde ay ahayd fulinta dastuurka dowladda ku meel gaarka. ammaanka magaalada Baydhabo ayaa si aad ah loo adkeeyay, isu socodka gaadiidka BL-ka iyo dadweynaha ayaa iyaguna aad u xadidnaa, waxaana wadooyinka lagu daadiyay ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya ee jooga magaalada Baydhabo. ma jirto wax faahfaahin dheeraad ah oo ay ka bixiyeen socdaalka ay Itoobiya ku aadeen iyo sidii ay wax u soo xaliyeen, waxaanay horgeeyeen baarlamanka warbixin buuxda oo ku saabsan wixii ay ku heshiiyeen. imaatinka labada mas'uul ee magaalada Baydhabo ayaa ku soo beegmay xilli baarlamanka Soomaaliya maalmaha soo socda oo cod u qaadi doono mooshin ka dhan ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisa. muhaajiriin Afrikaan ah oo ay ku jireen Soomaali badan ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen badda Mediterranean-ka ee u dhaxaysa dalalka Liibiya iyo Talyaaniga. dadkan oo ka kala socday dalalka Soomaaliya, Suudaan, Itoobiya, Eritrea iyo Ghana ayaa lagu soo warramayaa in ay tiradooda guud dhammayd 79 ruux, waxaana ka badbaaday oo keliya 8 qof oo ay u soo gurmadeen markab kalluumaysato ah oo meesha ka dhowaa. dadka ku dhintay ayaa la sheegay in ay ku jireen 8 dumar ah oo 4 ka midii ay uur lahaayeen, kuwaas oo baddu liqday kadib markii doontii ay la socdeen ku gadoontay badda Mediterranean-ka. 8 ruux ee shilkaas ka badbaaday ayaa la soo gaadhay iyagoo haysta qaybo ka mid ah doontii ay la socdeen oo iyadu ahayd nooca la buufiyo. tahriibayaasha badan oo ka taga dalalka Afrika ayaa isku biimeeya badda Mediterranean-ka ee u dhaxaysa dalalka Liibiya iyo Talyaaniga, taas oo inta badan tahriibayaashu ay ku qudhwaayaan. halkaad warkaa ka dhegaysanaysaana dhegaystayaal waa Radio Dalmar, hoygii Soomaalida holan. warkaygii maantana intaas ayuu inoogu dhan yahay.